كوران هدي دلالك إسلامكو أي دستان ناتو كارا فكرة هادير طولة maahan mid aan macquul ahayn kadib weeraradii ay ku qaatay Israa'iil Qatar Sacuudiga iyo Pakistan waxay saacideen heshiis difaac oo taariikhi ah kaasoo dhigaya haddii midkood la taabto waxay ka dhigan tahay in dhammaantood baa la taabtay sida qodobka shanaad ee NATO dadka badanana waxay dhahdeen tani waa bilowgii NATO-da Islaamiga ahayd balse maxaa dhici kara haddii ay ku soo biiraan dalal badan heshiiskan Sacuudigu wuxuu bixin lahaa dhaqaalaha halka ay Pakistan ay ku deeqi lahayd nuclear-ka halka uu Turkiguna ku dari lahaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn balse haddii ay ku soo biiraan wadamada kale halka Iran iyo Masar iyo Indonesia ay keeni lahaayeen ciidamo fara badan saldhigyo muhiim ah iyo goobo juqraafiyadeed oo muhiim ah sidoo kalena waxay gacanta ku hayn lahaayeen wadooyinka ugu muhiimsan ee ganacsiga adduunka kanaalka Suez Bab al-Mandab gacanka Hormuz iyo marin biyoodka Malacca iyadoo aan la mari karin wadooyinka ganacsiga caalamka waanu istaagi lahaa in ka badan 65 kaydka saliidda ee dunida iyo 45 gaaska dabiiciga ah ayaa iyaga gacantooda ku jiri lahaa sidoo kalena waxay haysan lahaa 6 milyan oo ciidan firfircoon ah halkay ku soo labalaabayaan ciidamada NATO oo dhan markaas su'aashu waxa ay tahay tani ma noqon kartaa xaqiiqo mise waa riyo kaliya